waxaan filayaa inaad wada garanaysaan sayidul istikfaar soo sax maahan aynu ka doodno in yar allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma stadactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faghfir lii fainahu laa yakfiru adunuuba ilaa ant aan guda galno istikfaarta caadi ahaan waa inaad dhahdaa astakfirullah taas ayaa istikfaarah astakfirullah alcadiim wa atuubu ilayh laakiin ducada dheer oo hore aan kugu sheegay maxaa loo dhahaa sayidul istikfaar sayidul istikfaar waxay la micno tahay madaxa istikfaarta sayidka istikfaarta haddaad doonayso inaad istikfaarsato haddaba taas ayaa ugu fiican layaab waxaa ah in sayidul istikfaar nagula amray inaan aqrino subaxdii iyo galabtii iyadoo la jirto adkaarul sabaax walmasaa miyaynula amrin haddaba maxay ku kala duwayn sayidul istikfaar iyo istikfaarta caadiga ah maadaama sayidul istikfaar xitaa aan ku aragnay faghfir lii yaa allah ii dembi dhaaf taas iyadan waa istikfaar yaa allah ii dembi dhaaf waxay ku kala duwan yihiin oo idil in sayidul istikfaar ay ka kooban tahay laba shay midda koowaad waa mahadinta allah midda labaadna waa qirashada dunuubtayna aanu qiranayno allah subxaana wa tacaala waana mid allah uu jecel yahay marka waxaa laga doonaya addoonka inuu ku mahadiyo allah subxaana wa tacaala waana sababta mahadinta allah ka hor ducada ay u tahay sunno sidaa darteed marka koowaad waxaan ku mahadinaynaa allah kadibna waxaanu qiranaynaa allah dunuubteena subxaana wa tacaala sow sidaasi maaha allaahuma anta rabbii taasi waa mahadin laa ilaaha illaa anta taasi waa mahadin khalaqtanii weli waa mahadin laakiin wa ana cabdug markaan soo gaarno laga bilaabo halkaas waxaan qiranaynaa waxaan ahay addoonkaaga yaa allah wa ana calaa cahdika wa wacdika waxaan ku dul suganahay axdigaaga iyo ballankaaga waxaa kaloo mudan in la sheego inaan qirahayno mastadactu inaan dhahayno inaan allaale intaan awoodno allahaygiyow waxaan qiranaynaa inaan anaga lahayn awood aan sidaa ku samaynayno in allaale intaan awoodno mastadactu intaa kadib waxaan leenahay acuudu bika min shari maa sanactu waxaan kaa magangalayaa allahaygiyow sharta dunuubta aan sameeyey dunuubtayda shartooda aan kaa magangalayaa halkan waxaan allah u qiranaynaa daciifnimadayna waxaan joogtaynaynaa mahadinta allah anagoo qiranayna dunuubteena sadarka soo socda gudihiisa oo ah abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii allahaygiiyo waxaan qiranayaa nicmada dhammaan nicmadaad isiisay dunuubteedana waan qiranayaa waxaad isiisay nicmooyin waxaan kula imaaday dunuub marka waa labada ay ka kooban tahay sayidul istikfaar mahadin iyo isdhiibid intaas kadib waxaa kusoo dhammaynaynaa oo kusoo gabagabaynaynaa faghfir lii waana sababta ducadan loogu magacaabo sayidul istikfaar